adeega guud dadweynaha ee la rabay dawladda inay qabato kaalintoodii qayb kamid ah ma wada buuxsana oo dadku adeega ma wada heli karaan sababtoo adeega waa lacag waxbarashada waa lacag dhowr boqol oo milyan ku baxda waxbarashada dalka waxaa bixiya waalidiinta bixiya dadka bixiya laakiin waxaa bixiya meeshii la rabay inay dawladda bixiso hadda waxaa bixiya private sector ka bixiya ganacsiga gaarka loo leeyahay bixiya caafimaadka waa saas oo kale waa adeega guud markaan ka hadlayna tusaalayaal baan soo qaadanaynaa waxaa bixiya private sector ka bixiya beesha ama bulshada ganacsiga bixisa waxaan u imaanaynaa waxyaalaha kaabayaasha dhaqaalaha la yiraahdo jidadka dekadaha garoomada dayactirkooda diyaaradaha isgaarsiinta bangiyada mobile banking waxaa la yiraahdo kulli waxaa bixiya ganacsiga gaarka loo leeyahay ayaa dhamaantiis bixiya qaybtaas waa qaybta aan tusaalaha uga soo qaadan karno ay ganacsatadu ka soo baxeen inay dadka u qabtaan maalintii oo taleefanka la keenayay qofka taleefanka keenaya hadduusan dhiiranaa lahayn dadku waxay u haysay inay dhedheel iska tahay taleefon ma keeni kartaa ha oo dadka dirsanayaan oo lacagtaadaad gelinaysaa ha riskiyaa loo arkaya hotelka hadda aan deganahay anigu waan jooga maalintii la dhisayay dadku way la yaabanaayeen hotela meeshaan oo yaa kuu dega hotelka walaalow magaaladan saan ah hotelka ka dhisato yaa kuu dega hala lahaa laakiin ku dhiiraday hotelkii waa dhisan yahay hadda annaga shir ku qabsanayna soo ma marka isgaarsiinta waa saas oo kale bangiyada waa xasuustaa bangiyada markii la bilaabayo bangi oo yaa lacag dhiganaa bangi Soomaaliya lacag dhiganaa la dhahay dadku way la yaabanaayeen laakiin maxay ku guuleysteen in la aamino oo maanta bangiga lacagta dheeta aad walal ka qabinin in laga qaadanayo walal kama qabtid xisaabaadka in laga dhacayo walal kama qabtid lacagta aad ku shubato intay rabtaa dhigato waxa maamulaya dad hanaan waxa loo raacay loo maamulayo lacagtaada la qaadan karin annaga waxaan soo gaarnay dawladda adoo bangiga lacagta aad dhigataa heli karin laakiin maanta bangiga lacag dhigato walal kama qabtid adduunka meesha rabto yaa kala bixi kartaa service marka waa midda aan dhigi karno waa lagu guuleystay maxaa laga gaabiyey marka waxaa laga gaabiyey lacagaha ay ganacsatadu ka faa'iidaan dadweynaha ma ku soo celiyaan waa su'aasha lacagta annaga iska le moogta annaga naga faa'iideen annaga client waa u shaqeyna oo ay ribax naga helaan maalan bankigan waxaa taala 70 milyan ama 100 milyan oo dollar dadka iska leh muxuu ku soo celiyaa marka waa meesha adduunka la yiraahdo mas'uuliyadaha ganacsiga ama corporate responsibility la yiraahdo maxaa lagu soo celiyaa waxaa lagu soo celiyaa ganacsiyada qaarkood hay-aday sameeyeen saaxiibkii Cabdullaahi ayaa igala jooga Hormuud Foundation howlo ay yar ay qabtaan waa jiraan laakiin kaalintii la rabay ma buuxiyeen ma buuxinin waajibkii ka saarnaa responsibility-ga social ama mas'uuliyadda bulshada ma lagu celiyaa haddii loo fiiriyo adduunka kale maya laakiin wax way ka qabteen midda ay completely gabeen marka maxaa waaye eberba ka yihiinba waa qaybta la xisaabtanka ayaga canshuuraha laga qaadaa canshuurtooda ma ku xisaabtamaan waa su-aasha oo canshuurtii laga qaaday waxaa laga yaabaa malaayiin dollar oo canshuur in laga qaado canshuurtaas waxaa looga qaaday in adeeg loogu qabanayo ama amni ama horumar dawladdu waxay ku qaadaysaa saasay ku qaadaysaa taas ma ka xisaabtameen oo xisaab ma ka galeen oo anaga 20 milyan laga qaad sanadka ama 10 milyan ama 5 milyan dawladdu maxaa ku qabatay maalin kasta suuqa bakaaraha ganacsigiisa waa la xiraa ayagii dawladdu soo fadhiyaan waxay leeyihiin ana ka dhima canshuurta waxay ka doodaan canshuurta ana ka dhima kaliya ka doodaya saaxiibada xildhibaanada qaar ay joogay mar anaga baarlamaanka noo imaadeen oo aan difaacnay in canshuurada qaarkood laga dhimo waxay ka doodaan canshuuro in laga dhimo laakiin canshuurta maxaa noo kugu qabtay ganacsatada dhahaysa ma arkaysid waa dad macnihii iska hogan oo lacagtooda inta la qaado maxaa lagu qabtay ma jirto